السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا كحرن هوغانكا نولاشا هديتها بوقشدة كوادات صوبقة الجنالك سبسكرايب براي لايك تادو حنوتها ديرقلين هرسعود waxaan rabaa inaan kula wadaago 4 calaamadood oo aad ku ogaan karto in taleefankaaga la jabsaday. calaamada koowaad battery mobilkaaga oo degdeg ku dhamaada. haddii aad aragto battery mobilkaaga degdeg ku dhamaanayo waxaad ogaataa in mobilkaaga lagu la isticmaalayo ama uu jiro shakhsi kale hagaray mobilkaaga. sababtan waxay tahay haddii mobilka uu galo isticmaal ka badan hal qof wuxuu batterigiisu ku dhamaanayaa degdeg. calaamada labaad isticmaalkiisa oo adkaada. calaamada labaad ee aad ku fahmi karto mobilka in lagu la isticmaalayo ama la hagareeyay waa in uu adkaada. tusaalahan markii aad rabtay inaad gasho application ka mid ah applicationada mobilkaaga ugu jira waxay qaadanaysaa waqti dheer inuu galo. calaamada saddexaad ee aad ku ogaan karto in mobilkaaga la jabsaday ama lagu isticmaalayo haddii aad ku aragto in daatada ay durba dhamaanayso waxaad ogaataa haddii daatadaada ay tahay mid qaybsata ama qof kale aad u qaybiso ama hotspot aad furtaa in degdeg ay ku dhamaanayso. ogow marka haddii daatadaada ay degdeg ku dhamaanayso adoo hotspot ku furan qofna aad u xariirin waxaad ogaataa in mobilka lagu isticmaalayo ama la jabsaday. sababtan waxay tahay daatada markay gasho isticmaal ka badan hal qof way qaybsantaa degdegna way ku dhamaata. calaamada afraad haddii aad aragto wicitaan fara badan iyo fariimo oo aadan adi dirin ama wicitaan aadan sameyn. ogow wicitaana haddii aad ku aragto iyo fariimo fara badan oo aadan dirin waxaad ogaataa in mobilka lagu isticmaalayo ama la hagareeyay. sababtan waxay tahay isticmaalka qofka kale lagu isticmaalay fariimihii uu diray ama callska uu sameeyay ayaa laga yaabaa inaad ku dhex aragto mobilkaaga. waxaad ogaataa in mobilka lagu isticmaalayo. waxaan rajeynayaa inuu ku anfacay intaa yar aan soo diyaariyay.